halkan ma ahan Ciraaq, ma ahan Afghanistan, Syria iyo Ukraine oo lagu dagaalamayo. Halkan waa gudaha dalka Faransiiska. Faransiisku waa uu gubanaya. Dhibaatooyinka ay geysanayaan dadka careysan ee banaanbaxyada dhigayana aad ayay u sii kordhayaan. waa cinwaanada ugu sarreeya oo warbaahinta reer galbeedka ay ka qorayso guud ahaan dalka Faransiiska. sidoo kale Carabta ayaa si weyn kaga hadlaya dhibaatooyinka ka taagan gudaha dalka Faransiiska. habeenkii afraad oo xiriira banaanbaxyo xoogan oo rabshado wata laguna baabi'iyay xarumo badan oo dawladeed, goobo dad rayida ay leeyihiin iyo goobaha dadweynaha ka dhaxeeya ayaa ka soconaya guud ahaan dalka Faransiiska, gaar ahaan magaalada Paris, magaalada Marseille, Lyon iyo magaalooyin kale oo dalka Faransiiska ah. dadka dibadbaxyada dhigaya waxay ka soo horjeedaan 17 sano jir Algeerian ahaa oo mid ka mid ah ciidanka booliiska uu dilay, oo waxay yiraahdeen Faransiisku waxba la iskama weydiiyo dhibaatada dadka rayidka loo geysto. gabadhan waxay ku qaylinaysaa fadlan ha gubina goobtan waa goob waxbarasho oo caruurtiina ayaa wax lagu baraa, ma ahan goobo ganacsi iyo goobo ay leedahay dawladdu. magaalada Lyon oo ah dalka Faransiiska magaalo ku taala, ciidamada booliiska waxa lagu waramayaa inta ay dadkii celi waayeen in la bilaabay in diyaaradaha helicopters la kiciyo si dadka banaanbaxa dhigaya loo xakameeyo. magaalada Paris oo caasimada Faransiiska ah dadkii ugu badnaa ayaa isugu soo baxay. dawladana ciidamo kale oo dheeraad ah oo amniga xaqiijiya ayay soo dhoobtay goobaha faras magaalada ah oo ay dadka ku kulmayaan. marka aad eegto dhibaatada dadka rayidka ay geysanayaan ka soko baraha bulshada, dadka qaarkii waxay ku soo qorayaan madaxweyne Vladimir Putin amuuba anaga noo soo diray ciidankii Wagner laga tarxiilay dalka Ruushka ee Belarus degay. sababtoo waxay leeyihiin dhibaatada dadka geysanaya waa kuwa hubeysan, gaadiid ayay ciidamadii booliiska ka dhaceen, hub ayay gacanta ay ku dhigeen. sidoo kale waxay qaateen xitaa qalabkii rabshadaha looga hortagayay oo ciidanka booliiska ay adeegsanayeen. dadku dhaca ay geysanayaan, dabka ay qabadsiinayaan xarumaha muhiimka ah, hubka ay gacanta ay ku dhigayaan iyo banaanbaxyadoodu aad ayay u sii kordhayaan. waxaana muuqanaysa marka in xaaladda Faransiiska aad looga baqayo oo sirdoonku waxay soo saarayaan xaaladdu tani way ka xumaan kartaa. muuqaalkan oo kale ila daawo waxay dadka leeyihiin halkan waxayba noqotay sida magaalada Bakhmut oo kale. Bakhmut waynu ognahay waa magaalo ku taala dalka Ukraine oo si adag muddo 8 bilood loogu dagaalamayay, aadna loo baabiiyay dhismayaasheedii. xalay magaalada Marseille oo dalka Faransiiska ka tirsan, laba ka mid ah ciidanka booliiska ayaa la dhaawacay intii rabshadaha ay socdeen. dhankooda ilaa iyo 80 ka mid ah dadkii banaanbaxa dhigay ayaa xabsiga dhigeen. laakiin muuqaalkan ila daawo. waa gaadiid aad u tiro badan oo halkii baakin ahaan ay u yaaleen intay dhismihii dabaqa ugu koreen dadka banaanbaxa dhigaya ay soo rideen. magaaladana sidaa ayay u gubatay. dadka banaanbaxa dhigaya sidoo kale waxay galeen goobaha lagu kaydiyo mootooyinka oo mootooyin tiro badan ayay la soo baxayaan, bangiyada dhaqaale ayay kala baxayaan, goobihii ganacsigu way burburinayaan, ama haddii aysan awoodin inay xoog ku galaan dab ayay qabadsiinayaan. aynu daawana muuqaalkan. duqa magaalada Marseille dalka Faransiiska waxa uu dalbaday ciidamo dheeraad ah in loo diro magaaladiisa. sidoo kale muuqaalada la soo dhigaya baraha bulshada ayaa muujinaya qaraxyo xooggan oo ka dhacaya bartamaha magaalada Paris, magaalada Lyon iyo magaalada Marseille. sidoo kale magaalooyin kale ayay dhibaatooyinka ay ka dhacayaan. dadka banaanbaxa dhigaya ee ku sugan magaalada Marseille xitaa waxa lagu waramayaa inay gacanta ay ku dhigeen baqaar ciidamada booliiska ay hub ay ku keysanayeen. hubkii ciidamada booliiska ayayna kadib bilaabeen inay ridaan. mararka qaarkiin waxa la arkaya iyaga iyo ciidanka booliiska oo buller isku eriyanaya. sidaas oo kale magaalada Paris oo caasimada Faransiiska ahna waxa lagu waramayaa in banaanbaxyo xoogan ay xalay ay ka dhaceen, iyadoo oo la burburiyay gaadiid aad u tiro badan oo ay lahaayeen dad shacab ah iyo dhismayaasha dawladda. xaaladda Faransiisku way ka sii daraysaa
kulamo degdeg ah oo amniga ayay isugu yimaadeen saraakiisha dhinaca ammaanka oo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaaba kulamada degdega ah ku baaqay. waxaa muuqanaysa marka in dhibaatooyinka dibadbaxyadu ay aad u sii kordhayaan. ciidan badan oo booliis la dhigay qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee barnaamijyadu ay ka dhacayaan, laakiin weli way xakameyn laayihiin. Paris iyo guud ahaan Faransiisku sidan ayay u ekaadeen oo way gubanayaan. wax walba oo ka soo kordhana macluumaadyadeena kale ayaan kugula wadaagi doonaa insha Allah. aad baad u mahadsantahay.